Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janalka eedan technology. Bismillaah. Maanta waxaan qaadanaynaa jabta 8 koorsadii Microsoft Word. Injineerkana waa taqaaniin fila. Casharkeeni koowaad ee jabta 8 waxa waaye out shape. Si aad u samayn lahayd shape muxuu noqon karaan shape looga noqon kartaa graph way noqon kartaa loogada mostly waa shape plus text. Marka hadda waxaan sameynaynaa shape oo waxaan sameynaynaa calanka Soomaaliya. calanka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay ku dhawaad laba shape asoo xidig ah iyo asoo shape aadi oo background-ka ah. Marka hadda sameynaynaa tusaale ahaan insert tab click ku siinaa, then in the illustration group waxaa kasii dooranaya shape. Marka shape doorato marka kasii doorato insert tab line xariiqin ma rabtaa, flow chart ma rabtaa, shape ma rabtaa, wixii rabtaa meeshaas kasii doorana, then click anywhere. tusaale ahaan north to add text on out shape haddaa rabto ama to add text si aad ugu darto text ama qoraal shape, right click on the shape click ku siinaa, then juice waxaa kasii doorana text. soo hadda anaga loo sheego isticmaalaynaa marka oo ah calanka Soomaaliya mid xidig waa midna background-kii waa. marka wada soo kacsanaa waa midkan. marka waxaan sameynaynaa national flag of Somalia balda nooga dhig noo weynay bal hadda ka dhigna midkan waa bal haddii midkan aan ka siiyo bal dhamaan, laakiin haddii bida kale ku siiyo waa bal. meeshan waa lagu weynayaa, meeshan waa italic, meeshan waa underline hoos haddaa rabto inaad ka xariiqdo. marka waxaan way inoo dhiman yihiin. marka hadda waxaan sameynaynaa national flag of Somalia. waxaan soo qaadanaynaa first shape, insert kale ku siinaa, then shape kasii doorna, insert tab marka kale ku siiso shape kasii doorna, shape marka kasii doorato waxaan qaadanaynaa rectangle shape kan qaadanaynaa. shape markaan qaadano ilaa qoraalka ku sameeyna ama waa ka yareyn kartaa, waa option kada iska leh. marka shape waa doorato, shape colorkiisu waa blue maahan, blue ka dhigayna. marka shape fila doorana xagee joogta formada joogta, waxaa kasii doorana shape fill, then calanka background-kiisu waa blue. hadda shape kan wuxuu leeyahay stroke ama border uu leeyahay. shape outline kale ku siina waxaa dheh no outline. shape-kii waa samaysanay, maxaa noo dhiman calankii yaa noo dhiman. insert shape kusoo noqonaynaa, insert kale ku siinayna, then shape kale ku siinayna, then calanka halkan ka raadinayna. calanka meesha laga helo waa star and banners, then calanka waa midkan. calanka kale ku siinayna, then halkan ku jiidaynaa. marka halkan ku jiidno calanka waa black waa. marka calanka waxaan ka dhigaynaa cadaan. wuxuu leeyahay calankan stroke uu leeyahay, stroke ama outline waxaan ka dhigaynaa no outline. hadda waxaa sameynay calanka Soomaaliya. hadda maxaa sameynay calanka Soomaaliya. shape-ka uga haweyn, marka waa soo yareynaynaa, calanka dhexda ku aadi. maxaa sameynay calanka Soomaaliya. casharka noo xeeyo waxaa waaye insert word art. si aad u sameyn lahayd word art drawing object shay sawire. word art mostly waxaa loo isticmaalaa EVC farta EVC mostly loo isticmaalaa. sidee markaa rabto inaad sameyso farta EVC word markaad joogto word waxaa isticmaalay word art fast. markaa rabto inaad sameyso farta EVC insert tab click ku siinaya, then in the text group waxaa kasii dooranaya word art. insert tab markaa doorato waxaa kasii dooranaya ama ka raadinaya word art markaa doorato click type of word art fontiyaha ku soo baxay midkii aad qaniya doorana, then tab the text you want to format waxaa qore qoraalkii aad rabto. tusaale ahaan marka hadda sameynaynaa
documentiga ku laabanayna waxaan sameynayna had fart EVC ga sameynayna mo fart EVC si aad u sameyso first insert kale ku siinay then halkan waxa ka raadinay waa dhaart halkan waa marka waa dhaarta kale ku siinay waa dhaarta marka doorato waxa ka sii dooranay fontiyaal ku soo baxay fonti aad kale ku siinay tusaalaan blaagana dooranayna blaaga marka doorano halkan waxa qoraynaa EVC plus EVC plus marka doorato EVC plus marka doorato fartani waxa dhahay filk no fila dhahay outline kan no outline dhahay no outline waan dhahanay oo malayna no outline yes waan dooranay no outline marka doorano hoos u soo deeyay marka waxa qore nambarada yaa qore nambarada tusaalaan lix xala mustil laga bilaabo dhibic 4 xariigin 51 minus ama xariigin eber minus 74 dhahay marka wax yar noo soo yaray caadi waay had marka waxa uu sameysanaynaa shay waa u sameysanaynaa si uu qurux badnaado shay waa u sameysanaynaa marka insert kale ku siinayna dan shay waa kale ku siinayna dan waxaan dooranaynaa midkan oo rounded rectangle kale ku siinayna dan halkana la ekeenayna marka saan sameeyno shape-ki kor u soo maray waraalkii hoos soo maray sida wax leenahay marka raabta kasta kale ku siinay shape-ka dooranay marka hore shape-ku ku dooran yahay raabta kasta daga then behind the text ade oral hostis ay marmaana behind the text ade tusalahan textigi black way san ma qurux badna textiga kalarka bedelayna huma taga then fontiga meeshan fonti kalarka waxa dhahe adana dhahe hadda muxuu noqday aadi uu noqday sidii haday ita shape kalarka waan ka bedeli karnaa shape kalarka bedelayna sidee ugu bedelay shape-ka doorane then shape marka doorato formada kale ku siinay then shape kale ku dhahe then salaam blue dooranayna blue marka doorano oraalki aan dib ugu soo celno marka caadi waa xitaa strogani waa ka qaadi kartaa ama outline kan si loo qaadan shape-ka doorane then shape outline kale ku siinay sana u sameynay fart EVC asharkan nooxii maxaa waaye out shape waa qaadanay insert waa dhaart waan qaadanay asharkan nooxii waxaa waaye sidii aad border uu sameyn lahayd textiga ama stroke marka photoshop meelahaas aad joogto stroke la dhahaa laakiin markaad joogto waa document border la dhahaa marka sidii aad textiga documentiga border ama stroke uu sameyn lahayd iyo si aad u qaadi lahayd to add border to paragraph si aad paragraph ama textiga caadi ugu dari lahayd border click anywhere the paragraphka doorane then to add border to specific text paragraphkaas dhaxdiis si specific text qoraal ugu darto waxa doorane textiga aad rabto inaad border ugu darto then click home tawaate then bottom arrow doorane arrow kaas waxa dhaxaysa ku jiro bottom border top border left border right border no border all border marka option ka rabtaa ka sii doorane iyadoo practical qaadanayna marka soo document soo furnayna paragraph u sameeysanayna 3 paragraph u sameeysanayna marka u sameeysano marka paragraphyada waxa u sameeynayna border equal and double bracket inta had 3 paragraph halkan lagu diyaarsan waxa u sameeynayna marka ma soo yareena waxa u sameeynayna marka border u sameeynayna sahan paragraph koowaada waxa u sameeynayna border waa calaamadayna marka calaamadayso waxa tagay home then arrow border waa midkan falaartan waa marka halkan kale ku siinaydan bottom border hoos ma rabta inaad border ama stroke u sameyso kor ma rabta left ma rabta right ma rabta salahan top igu kor igu sameeyaan top border kale ku siinay maxaa loo sameeyay
حريقنا لو سمي وجد حريقن ها left وسمي عندها مرك left هذن وسمي border left دورنا وسمي ها hoos وسمي عندها bottom واي hoos ها ما هاي سهري ما هاي سهري right وسمي مركز ده وقاده ودورنا paragraph ka dooranay dan maxaa dhahe no border hade tusaalahan saddexda paragraph dhan waxaa rabaa inaan u sameeyo border dhammaantood waa dooranay control a aan dhaha then arrow aan tagaa arrow point ama button ka tagay then waxaa dhahe all border dhammaantood border u sameey dhammaantood border u sameey dhammaantood muxuu u sameey border ashirka noo wixii maxaa waaye ashirka noo wixii waxaa waaye si aad big border u sameyn lahayd si aad big border u sameyn lahayd add a border to a page in document and remove si aad border ama border aa u sameyn lahayd ama stroke page ka hadday wahayd paragraph hadda laakiin waa page ka dhan waaye si aad border u sameyso page first page layout kale ku siinay in the paragraph group waxa ka sii doornay page border then waxaa diyaarsan xariiqyaal diyaarsan mid bold ah mid oo small ah mid oo normal ah mid ka rabta dooran even oo waxyaala diyaarsan oo artificialist maana uu leeyahay laaf flower qalimaan waxa rabta dooran iyadoo practice ay qaadanayna marka tusaale ahaan isbeedkan control a dhaha dhammaantood waxa dhaha no border marka beedkan waxa uu sameeynaa border first waxaan dhahay big layout kale ku siinay big layout marka kale ku siiso waxa ka sii doorane big layout marka doorato waxa ka sii doorane big border ka sii doorane marka halkan preview waa big halkan shay wixii aad ka doorato halkan big soo ekana before okay ko intaadan leh halkan ku waan kartaa tusaale ahaan xariiq meesha aan dooran doono midaan aan dooranaa tusaale ahaan big saan u ekaan doona midaan xariiqintan waa mid weyn waa bold waa haddii aan okay aan dhaho bigka muxuu noqday border loo sameeyay tusaale ahaan mid khafiif ah u doorana mid khafiif ah kor waa mid kor kuwan waa mid ka rabtaa dooran kartaa okay haddaan loo saan u ekaanayna big waa u sameeyay tusaale ahaan sida uu qaaday big border kale ku siinay then halkan waxa dhahay nana halkan ka dooranay nan waa midan nana dhaheedan okay big wax border uu leeyahay malahan tusaalahan waxa rabta inuu sameeyo ubaxyaal waxaas waxa dhahay arta dooranay meesha arta button kana fure then meesha waxa ku jira ubaxyaal badan ku jira design-yaal badan mid ka rabta ka sii dooran karta tusaalahan tufaaxan doorana then okay aan dhaha big maxaa loo sameeyay borderkiis tufaaxyaal tusaalahan tufaaxa waan ka bedeli karaa waxa uu sameeynaa tusaalahan mid ka rabta dooran tusaalahan music icon aan dooranaa music icon waa kan music icon waa kaas mid kana dooraneedan okay aan dhaha maxaa loo sameeyay big music icon oo border loo sameeyay sidee uu qaaday page border ku noqoneedan button ka kale fiina kor waxa ku yaal nana kale ku siinaydan okay saasa waxa uu qaaday tufaaxadii xariiqantan sidee uu qaaday waa easy waa meeshan aanana dhahay bes then okay beedkan hadda ma lahan wax border ah asharka noo wixii maxaa waaye customize shortcut key assignment si aad u sameyn lahayd shortcut key you can customize shortcut keys in Word waxaad sameyn kartaa shortcut key maxaa laga wadaa shortcut key waxaa waaye control A waa select all control wixii oo control A control B control J control N waxaan waa shortcut computerka uu yaqaan marka adin waxa laga rabaa shortcut aan Wordkaas aqoon inaad sameysato si loo sameeynaa you can customize wax sameyn kartaa shortcut key sameyn kartaa in Wordka dhays by assigning adoo
bixinaya shortcut key to command si amare computerka saaran document haduu ku furan yahay wax ku waran yahay control hadaa dhacdo amar aad bixisay amarkaas waxa way dhamaatay calaamaday uu ku calaamadayna saas ama sameeynaa waxa laga rabaa shortcut aad sameynayso waxaan computerka aqoonin if you don't like the changes waxa sameysay hadaadan jeclaysan ma lagu dhahay si default ah ugu laaban kartaa sida shortcut u sameyn kartaa marka fast auto assign shortcut sida u assign gareynaa shortcut tusaalahan waxa diyaarsanaya wixii aad shortcut-kaas u isticmaali lahayd oo ah qoraal ama document wixii aad basta soo dhigi lahayd macnaha then markaad diyaarsato then waxa dheh meesha aad assigning aad ku sameynayso waa option file menu aad click kusinay then option then customize response then click customize iyadoo practical sameynayna iyo wixii aan shortcut-kaas u isticmaali lahayn hadda qorayna tusaalahan documentiga soo furanayna halkan waxaan dhahaynaa enter halkan page labaad wax ku qorayna tusaalahan shortcut waxa u isticmaali doona my name is Abdi Fatah enter then waxaan dhahay address Mogadishu district Wadajir maxaa soo haray nationality su'aal ahaan la yahay waxaan nationality waxaan dhahaa Soomaaliya nationality Soomaaliya tusaalahan kuwana oo isticmaala shortcut oo isticmaali doono waxa waaye control plus f hadaan dhaho waxaan rabaa inaan kuwani control f aan reexa kuwana la ii keena meeshii aan rabo documenti dhehdiis meeshii aan rabo xitaa book dhehdiis control f hadaan dhaho waxaan rabaa inaan kuwani basta la igu soo dhaho marka first kuwana calaamadayne markaa calaamadayso waxaa taga insert waxaa kasii taga quick parts meel dhaho quick parts waa midkan quick parts markaad kala ku siiso then waxaa kasii doorane save selection markaa kasii doorato halkan my name maa ku qoran then halkan waxaan ku qoraa my name si direct u qaadatay marka meeshan waxaan dhahaa my address tusaalaan my address meeshan waxaa laga rabaa meeshan out text laga rabaa meeshan my address waay meeshaas waxaa ka dhigay out text meeshan general waay meeshan normal then okay aa dhahe marka okay aa dhahdo marka haddaa u sameynay customizing waxaa dhahe file menu then option aad doorane then option markaad doorato option waxaa kasii doorane customize ribbon markaad doorato halkana customize aa dhahe customize marka kasii doorato halkan waxaa ka raadine meeshan waxaa ka doorane building blocks waa kan building blocks aa kale kusiina then halkan waxaa ka raadine magacii haddaa u soo baahsanay oo ah my address ama imaan dhaha si aan u raadiyo my address awe my address oo sii jirtay my address awe waatan my address markaan doorto then halkan shortcut key halkan gelina marka press new shortcut key halkan waxa gelinaysa shortcut control F control F waan geliyay control F markaan geliyay halkana laga rabaa in la isoo saaro oo assign aan dhahaa assign markaan dhaho meeshan maxaa la soo geliyay control F key aan computerka ku assign gareeyay dan waan dhahaa close markaan dhaho had uu assign gareeyay shortcut-ka tusaalahan marka meeshan waxaan dhahaa meeshan control F hareeha control F maxaa la soo geliyay
my name adفتاح tusaalaan paragraph ka dhexeysa tusaalaan halkan labadan paragraph dhexdood waxaan dhahaa control F maxaa la soo geliyay my name sana ugu siinay ama hitaa meesha calanka meeshana waxaan rihaa control F way soo geliyay ujeedin mo saasa loo asaan gareyna ay maana shortcut jabtarkeeni meeshaas oo lagu egyahay on maasantiin janaalka noo flow gareeya thank you dhamaantiin maasantiin janaalkan subscribe la saaro